الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فدغن kii ka horreeyay waxaan kaga hadalnay kelimata tawxiid iyo muxuu ahaa ruknigii ramadaan iyo arkaan islaam si guud ahaan ayaan kaga hadalnay. islaamka kelimata tawxiid iyo arkaan islaam ahmiyad weyn ayuu siiyey. waxaan ahmiyadaas mid lamid waxaa la siiyey tawxiid ulkelima, muslimiinta midnimada iyo ummadda muxuu ahaa inay mid ahaadaan, xayaatadooda guud iyo cibaadada mid labadaba. walidaalika shacaa'ir uddiin cibaadaadka muuqdaan kulli waxay ku binaysan yihiin muxuu ahaa midnimo iyo kulan iyo ijtimaac. soomka muxuu ahaa muslimiinta waxaa la amray inay wada soomaan hal mare inay wada afuraan, ciidda inay mataqaanaa hal mare wada ciidaan oo shaciirada la muujiyo, xajka sida oo kale, salaada jamaaca waa saas oo kale. waxay ka tarjumayaan tawxiid ulkelima. maanta waxaan ka hadlaynaa ramadaanka kolkay muslimiinta ay bilaabayaan waxaa la doonayaa midnimo inay ku bilaabaan, kolkay afurayaanna midnimo inay ku afuraan, yacni inay iskhilaafin. walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam abu hurayra wuxuu ka wariyey radia allahu canhu nabiga sala allahu calayhi wasalama in uu yidhi assawmu yowma tasuumuun waalfidru yowma tufdiruun waaladxaa yowma tudaxuun. macnaha soonka muslimiinta ay soomayaan waxaa laga doonayaa waa maalintii muslimiinta ay soomeen oo ah waxaa meesha laga diidaya. xadiidka waxaan ka faa'idaysanaynaa in qof uu muslimiinta uu shaad ka noqdo, uu khilaafo jamaacat almuslimiin fii xaali fitrihim wa xaali alimsaak. bimacnaa kolkay muslimiinta ay bilaabayeen soomka inuu qof uu keligii ama jamaaco kooban muslimiinta ay ka hormaraan ama ay kadib maraan, taa waa la diiday, lama ogolo. lianna asalka qofka waxaa weeyaan luzuuma jamaacati almuslimiin fii dukhuuli shahri ramadaan wa khuruujiha wa fii gayriha. lianna waxaa weeyaan jamaacat almuslimiin waa raxma, mukhaalafataha waa cadaab. alummatu laa tajtamicu calaa dalaal. الصوم يوم تصومون وما أنت أتصوميسان، والفطر يوم تفطرون وما أنت أظفريسان. ومعناها اعتبارك وحوي اجتماع كلمة المسلمين وحكا سائدة كوين مركب حالدون يا مسلمين إنا يكون دالان إنا يمحوها صومك هالمرة إنا صومان. ولما ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أوجد صوموا لرؤيته أو رؤية الهلال، خطابك waxaa la yiri waa caamata almuslimiina lala hadlaya. inta muslimiinta ay karayaan midnimo in lagu wada soomo, midnimo in lagu wada afuro, in lagu dadaalo ayaa fiican. الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ومaalinta mataqaanaa ciid اladxى oo mataqaanaa bisha carafa oo axkaamtii xajka muxuu ahaa ay muslimiinta gudanayaan. kadalika ictibaarka waxaa weeyaan maalinta muslimiinta wuquufa carafa ay istaagaan kolkii mataqaanaa ciidda, taasaa la ictibaaraya. hadduu qof shaad ka noqdo waxaa weeyaan ictibaar ma laha. waxaa kale oo meesha xadiidka noo cadaynaya hadday dhacdo muslimiinta inay seegaan in mataqaanaa kolkay dadaalay ka dambe bisha inaan la waafajinin aragtideeda, oo laakiin muxuu ahaa muslimiinta ay wada soomaan, ay wada afureen, ama muxuu ahaa maalinta carafa dadaalkooda iyo muxuu ahaa muslimiinta ay ku midoobeen, ilaahay wixii khada ah ama mataqaanaa aan seegnay bisha, ilahay subxana wa tacaala waa macfuu canhu, muslimiinta uma qabanay. marka xadiidka waxaan ka faa'idaysanaynaa samaaxada islaamka diinteenna. wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ina diina yusr. marka diinta ilahay muxuu ahaa wuu noo fududeeyey, wuxuu noo kor yeelay wax alla wixii mataqaanaa cariiri iyo dembi iyo mataqaanaa muslimiinta kalif iyo mataqaanaa culas u keenayo. waxaa kale ka faa'iidaysanayna xadiidka hadday gefaan muslimiinta sidaan sheegnay bisha muxuu ahaa ramadaan bilashadeeda ama muxuu ahaa midda soonfurta hadday gefaan, gefkaa ilaahay wuu noo kor yeelay. ilaahay wuxuu nagu addoonsaday wixii cilmigeenna aan ku haleelne in mataqaanaa aan ku camal falno. marka xadiidka waxaan ka faa'idaysanaynaa in muslimiinta ay ku dadaalaan midnimada si guud ahaan. tawxiida kelimata almuslimiin ina hadihi ummatukum ummatan waaxida wاctasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu.
si khaas ahaan haddana cibaadada in lagu dadaalo kelimata almuslimiina in la mideeyo jazaakum allahu khayran ilahay waxaan weydiisanaynaa in muslimiinta meel ay joogaanba in uu muwaafaqo siiyo in mataqaanaa diintooda iyo caqiidadooda iyo tawxiidkooda islaamnimadooda kulli waxay noogu yeerayaan tawxiid alkelima inaan qabsanno ilaahay subxaana wa tacaala xirigiisa oo walaal aan ku noqonin diinta oo khilaaf iyo mataqaanaa iyo kala tag aan ilaahay uu naga ilaaliyo allah nagu anfaco wa sala allahu calaa nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin